Assalaamu calaykum. Daawada hore ma u maqashay magaca Baraka Khan? Ma ogtahay ciddii u horreysay ka soo islaamtay ciidankii Mongolian-ka ama ciddii Tatarka? Haddaba aynu isla ogaano maanta. Waa Baraka Khan bin Jogi bin Genghis Khan. Waa mid ka mid ah 7 wiil ee uu dhalay Jogi, kuwaas oo kala ahaa Batu, Orda, Shiban, Baraka, Chamtai, Barchagar iyo Toqotimir. Batu ayaa ugu weynaa. Baraka Khan waxa uu ahaa wiilka afraad. Aabihii ayuu ka dhaxlay hogaaminta qabiilka Dahabiga ah, taas oo ahayd midii ugu horreysay ka soo islaamtay qabaa'ilka Tatarka. Baraka Khan waxa uu ahaa ninkii ugu horreeyay ee ka soo islaamay Mongoliska, wuxuuna islaamay sanadii 650 Hijriga, isagoo markaas ka soo noqday caasimadda dowladda Mongoliaska ee Karakorum. Intii uu safarka ku guda jiray ayaa waxa uu wadada kula kulmay mid ka mid ah culimada Islaamka oo la yiraahdo Najmuddin Mukhtar. Markaas kadib ayuu qaatay diinta xaqa ah. Islaamnimada Baraka Khan ma aysan la mid ahayn islaamnimada qof caadi ah, waa islaamnimada boqor geesi ah, sidoo kale hogaamiyo mid ka mid ah qabaa'ilada Mongolianiska. Mongolisku sidaad ogtihiin waagaas waxa uu riyaa argagax leh ku ahaa dhammaan bini'aadamka oo idil, gaar ahaan muslimiinta. Sidaas darteed ficiladan geesigan weyn waxay ahaayeen kuwo gaaray heer sare oo mas'uuliyad iyo hogaaminba ah. Suldaankan sanamka caabudi jiray waxa uu isku bedelay askari ka mid ah askarta ugu daacadsan diinta Islaamka, isaga oo aad u jeclaa difaaca diinta iyo dadka muslimiinta. Tusaale cadna u noqday macnaha dhabta ah ee yaa colkaaga ah yaase sokoyahaaga ah, waana qayb ka mid ah shaqooyinkii ugu muhiimsanaa ee Baraka Khan uu diinta Islaamka u qabtay. Maadaama Baraka uu ahaa hogaamiye, islaamnimadiisii waxaa ka soo horjeestay dad badan oo Mongolis ah, gaar ahaan waxa uu beecada siiyey khaliifkii muslimiinta ee Cabbaasiyiinta Al-Mu'tasim Billah. Sidoo kale waxa uu dhisay caasimadda Mongoliska waqooyi ee Saray. Magaaladaas waxa uu ka dhisay masaajid weyn, isaga oo ka dhigay midda ugu weyn adduunka ee xilligaas. Baraka waxa uu Islaamka qaatay xilli ummadda muslimiinta ay ku jireen xaalad adag, xilli qabiilkiisa Mongoliska ay la dagaalamayeen dadka haysta Islaamka. Sidaa darteed waxa uu dusha saartay waajib weyn oo ahaa in uu badbaadiyo muslimiinta ku dhimanaysa xasuuqyadii Mongoolka. Si kastaba ha ahaatee, isaga oo boqor u ahaa dhulka Qeybjad waxa uu la kulmay caqabado dhowr ah. Caqabadaha ugu waaweyn waxay ahayd in uu ku hoos jiray xukunka Khanka weyn, kaas oo dagaal kula jiray muslimiinta. Caqabada labaad waxay ahayd in ciidankiisa ay dhowaan ka soo baxeen sanam caabudidda, isla markaana ay weli ku taagan yihiin aragtidii Genghis Khan oo ay u arkayeen halyey. Haddii uu si cad ugu dhawaaqo inuu dagaal la galayo Haloko, waxa uu ogaa in uusan heli karin taageeridda ciidankiisa. Sidaas darteed waxa uu qaatay qorshe xeeladaysan oo uu ku hor istaagi karo Haloko. Isaga oo aan ka caraysin Khanka weyn, waxa uu ciidankiisa u diray in ay weerar ku qaadaan Haloko, isagana uga badbaado cadhada Khanka weyn. Waqtiga oo fuliyay qorshihii waxa uu ahaa waqti munaasib ah marka loo fiiriyo khilaafka ka dhaxeeya isaga iyo Haloko, sababtoo ah khilaafkaas waxay ahayd markii uu Baraka Khan ka codsaday Haloko inuu siiyo qayb ka mid ah dhulka uu qabsaday iyo hantida uu helay. Sida caadada u ahayd boqorada Mongoolka, Haloko ayaa aad uga xanaaqay, isagoo oo dilay ergadii Baraka Khan. Arrintaas waxa uu sii horisay cadhadii Baraka, waxa uuna fariin u diray Bebris, boqorka dowladdii Mamaaligta, si ay uga midoobaan dagaalka ka dhanka ah Haloko. Waxa uu ku yiri fariintan: waad ogtahay jacaylka aan Islaamka u qabo, sidoo kale waad ogtahay waxa uu Haloko ku sameeyay muslimiinta, adigana dhinacaaga ka soo gal dagaalka, anigana dhinacayga ayaan ka soo galayaa ilaa aan ka jabino ama aan ka saarno dhulka. Waxaan sidoo kale ku siiyey dhammaan dhulka uu gacanta ku hayo Haloko. Intaas kadib dagaalo qarar ayaa dhex maray labada boqor. Baraka Khan waxa uu u dagaalamayay in uu joojiyo duulaanka militariga ee Mongoolka ku hayeen dhulka muslimiinta, halka Haloko uu doonayay inuu qabsado boqortooyada Baraka Khan. Baraka oo hoggaanka u haya ciidankiisa iyo Haloko Khan ayaa waxaa dhex maray dagaal aad u weyn oo ku soo dhammaaday jab xooggan oo la gaarsiiyey Haloko. Intaa kadib Baraka ayaa hadiyad aad u qiimo badan u diray boqorkii dowladda Mamaaligta Bebris. Haloko Khan isaguna waxa uu ku dhintay duurka isagoo baxsad ah kadib markii uu jab xoogan kala kulmay dagaalkii uu la galay Baraka Khan. Wiilkiisii Abqa Khan ayaa la wareegay booskii aabihii, isagoo isku dayay in uu ka aarsado Baraka si uu u qariyo jabkii aabihii.
Abqa Khan waxa uu soo diray ciidan xoog leh oo u diray Baraka, laakiin Baraka Khan ayaa ku jabiyay dagaal kale isaga oo kala dhantaalay ciidankii. Boqorkii dowladda Mamaaligta Bebris ayaa aad ugu farxay arrintan, islaamnimaduna waxay gebi ahaanba bedeshay. Baraka Khan waxa uu la dagaalamay qabiilkiisii isagoo difaacaya diintiisa. Jacaylka uu qabay islaamka ayaa ka xoog badnaa qabiilnimada iyo qabyaaladda. Baraka Khan waxa uu ixtiraami jiray culimada, waxaana ku guuleystay jabinta Holaco oo xasuuq ba'an ku hayay muslimiinta, isagoo oo dilay Muctasim Billah iyo dad kale oo badan oo muslimiin ah. Baraka Khan waxa uu sidoo kale ku guuleystay inuu jabiyo Holaco wiilkiisii. Sanadii 665 Hijriga ayuu geeriyooday Baraka isagoo oo hawlo badan u qabtay islaamka iyo muslimiinta. Boqortooyadiisii ayuu ka dhigay boqortooyo islaamka uu leeyahay. Culimada iyo aqoon-yahanada islaamka ayuu iskaga kala wacay daafaha caalamka si ay dadka ugu baraarujiyaan diintooda.